Safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa sheegtay inuu soo gaaray danjiraha cusub ee Shiinaha ee dalkaas. Danjiraha cusub, Cheng Chao, ayaa qoraal uu soo dhigay webka Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya waxa uu uga hadlay xiriirka labada dal oo uu sheegay inuu soo bilowday 600 oo sanadood ka hor markii uu Muqdisho soo booqday badmaaxii Chinese-ka ahaa ee la oran jiray Zheng mar uu marayay bariga Afrika. Safiirku waxa kale oo uu sheegay inay Soomaaliya ahayd dalkii ugu horeeyay ee bariga Afrika ku yaala oo xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Shiinaha. Wuxuu intaas ku daray inay Soomaaliya garab siisay Shiinaha oo ay ka caawisay si ay u helaan kursiga qaramada midoobay oo ay Taiwan markii hore ku fadhin jirtay, ayna arrintaas abaal weyn uga hayeen Soomaaliya. Danjire Fai Cheng Chao, danjiraha China u jooga Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in xiriirka labada dal Soomaaliya iyo China uu soo jiray muddo 600 oo sanadood ka badan, uuna ku dhisnaa iskaashi iyo ixtiraam iyo in la isla macaamilo sidii laba dal oo siman si ay isula wajahaan caqabadaha waaweyn ee horyaalla labada dal. Dad badan oo daafaha caalamka kala jooga oo aan ka warhayn arrimahan ayay la yaab ku noqotay in Shiinaha oo maanta ka mid ah wadamada ugu quwadda badan uguna dhaqaalaha badan caalamka inay Soomaaliya ka caawisay in Shiinuhu kursi ku yeesho qaramada midoobay. Qaar ka mid ah dadka afkaaraha ka dhibtay arrintan ayaa sheegay inay Soomaaliya hadda u fiicnaan lahayd inay u laabato waqtigii qadiimka oo ay Soomaaliya dunida ku lahayd darajo fiican. Halka bay yiraahdeen Shiinuhu aanay u fiicnayn inuu dib ugu laabto xilligii Soomaaliya ay garabka siinaysay. Adiguba isbarbar dhig Soomaaliya iyo Shiinaha oo ku jira wadamada leh veto power, codka diidmada, maxaa ku soo baxaya?